السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبتنا qiimaha badan ee ku xirbartana youtube-ka Cabdulla Deqsi iyo sidoo kale facebook page-keena xogtaan midho waxaan dinahaynaa arrimaha fisharmaba iyo malyoon maanka furninkooda maxaa ka jira maxaase ka runa arrintan ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijkeena maanta balse marka hore waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka like saarto una share garin saaxiibada kale facebook waxaa ku xidhan dad malaayiin qof kuwaasi oo saaxiibo kula waxaan ka codsanayaa saaxiib inaad u share gareyso soo kale bartaada youtube-ka aad ku share gareyso youtube-keena soo kale subscribe dhahaado youtube-keena gabalaalkana furato si ay ku soo gaaraan muuqaal kasta oo qiimo badan oo ku soo dhigno haddaba maxaan barnaamijkeena maanta ka hadli doonaa malyoon maanka iyo sharmaba miyay kala tageen maxaa ka jira arrintan sida weyn baraha bulshada loogu hadalhayo ee furninka iyo fashilka iyo khiyaanada yaa khiyaamay sharmaba oo ka dambeeyay inuu khiyaano si kastaba ahaatee barnaamijkan oo dhammaystiran halkan ayaad ka bogan doontaa saaxiibe fanaanka caanka ah sharmabay iyo fanaankii da'yaraha ee sharmabay waxa uu furay xaaskiisii malyoon maanka kaasi oo uu taagay dalaaqda isagoo ku jira baraha bulshada dhexdooda oo leef ku jira waxa uu sheegay sharmabay inuu qof saaxiibkiisa khiyaanay qofkaasina waxa uu noqday sida hay ilwariido cadaynayaan saaxiibkiisa maslax mideeye oo ah saaxiibkiisa dhabta ayaa sharmabay oo arkay isagoo xaaskiisa sawiro kula jira amba isagoo iyo xaaskiisa oo bashaalaya saa darteedna waxa uu go'aansaday inuu xaaskiisa warqada siiyo si kastaba ahaatee inkastoo ay dadka qaarna sheegeen inay sanadkii labaad ay yeelan weyday oo kadibna uu sheegay inuu la guursanayay yadnahay ka diiday saa darteed u furay haddana waxay ilwareedyada ugu xooga badan sheegayaan inuu maslax mideeye xaaskiisa darteed u furay taasi oo sheegay inuu qof khiyaanay qof waliba saaxiibkiisa ugu dhawaa dadka mar la weydiiyay su'aasha inuu ka jawaabana waxa uu ka gaabsaday sharmabay si kastaba ahaatee dadka baraha bulshada isticmaala iyo sidoo kale dadka u dhowdhowaa malyoon maanka ayaa si weyn uga dareen celiyay taasi oo ay cambaarayeen sharmabay kuna tilmaameen qof hanan lahayn wax aqliya iyo xaqoona midna sidoo kalena ah qof iska cilmaanaya oo ay ku adag tahay inuu kala fahmo inay qofkani sawiradan la gashay iyo inay ka dhaxayaan xidhiidh midna sharmabay waxa ku eedeeyay qofkan inuu khiyaanay una dabamaray reerkiisa amba xaaskiisa waxa uu la jeeday taasi oo ugu dambeyntii ku qasabtay ayuu yidhi inaan furo amba warqada furninkan xagga hore uga dhiibo malyoon maanka iyo sharmabay waxay isguursadeen sanadka markuu ahaa 2020 dhammaadkiisa kaasi oo loo arkayay inuu yahay reer galeelay oo qurux badan sidoo kalena bilowgii hore ee sanadkan iyo sanadkii horeba waxa ay soo bandhigeen reer qurux badan iyo sidoo kale qoys qurux badan iyo ilmahay ugu horeeyay oo ay si qurux badan leh baraha bulshada labaduba hay ugu soo bandhigeen iyaga oo ku faanayay amba farxadda qoyskooda quruxda badan la wadaagay asxaabtooda si kastaba ahaatee inkastoo calafku ka adeegay haddana sharmabay iyo xaaskiisa ugu dambeyn way kala tageen waxaana inta badan khaladka dusha loo saaraya saaxiibkiisa maslax mideeye oo inta badan kala soo muuqan jiray fagaarayaasha iyo meelaha fanka uu tago halkaasi oo ugu dambeyn markuu sharmabay waqti badan ka maqnaa dalka hal la aaminsan yahay inuu ka shaqeeyay inuu kala diro sharmabay iyo malyoon maanka oo isku ahaa mar ubax iyo geedkiisa saaxiibadana qiimaha badan oo barnaamijkeena maanta intan ayaan kaga hadlaynay balse waxaan ka codsanayaa inaad barnaamijkan sii leegareyso adiguna aragtidaada reer commentimee reer sharmee oo reer milagmee waxaan idinka codsanaynaa inaad commentiga halka nooga cadaysaan sidoo kale barnaamijka share gareysaan sidoo kalena aad leegta saartaan muuqaalka soo u gaadho saaxiibo badan oo daawada amba ka dareen celiya sharmabay iyo malyoon maankana waxaanu leenahay ilaahay mid babaas iyo mid kale bacbadal khayr qaba kii qaladka lahaana imika meel ka qabto ma joogno haddii ay dib isku soo noqdaana ma jiro wax diidaya saaxiibayaal maal wanaagsan ayaa la leeyahay barnaamijkuna intan iyo ku weydiiyay